ma ka walwashaa hadalka dadka waxa ay dadku ka sheegayaan ma dhibsataa run ma moodaa waxyaabaha qaar ay dadku kugu yiraahdaan haddaba haddii ay dhibaatadani ku haysato waxa aan kugu soo gudbinayaa muuqaalkan kooban xalkii aad uga bixi lahayd dhibaatadan waxaanan ku damaano qaadayaa haddii aad tallaabooyinkan sida ay yihiin aad u raacdo inaad ka baxaysid dhibta ah inaad ka baqdo hadalka dadka tallaabada koobaad ku kalsoonow naftaada dadka badanaa ka baqda hadalka dadka waa dad aan iyagu nafsi ahaan isugu kalsoonayn marka horeba dhis kalsoonidaada qaba waxyaabaha aad ku fiican tahay ag joog dadka ku qiimeeya ka fogow waxyaabaha dilaya kalsoonidaada mar walba ka warhay heerka kalsoonidaada waxyaabaha aad ku fiican tahay horumari waxyaabaha ka dhimanna kororso tallaabada labaad samayso xuduud haddii aad leedahay xad aan lagaaga soo gudbi karin tusaale ahaan haddii uu qof wax ka sheego ha u ogolaanin inuu wax ka sheego u istaag naftaada una sheeg inaanad raali ka ahayn waayo qofku markuu tijaabiyo inaanad xad lahayn wuxuu rabo ayuu kugu sameynaya qofkii shalay ku caayay waxa laga yaabaa maanta inuu candhuuf kugu tufo sidaas darteed dadka u sheeg waxa aanad ka raalida ahayn tallaabada saddexaad baro naftaada mar walba ha u qaadanin waxa laga sheegayaa inay been yihiin mararka qaar waxa dhici karta in laga sheego sifa aad leedahay oo xun talo ahaan u qaado taas oo kale laakiin maxaan uga jeedaa baro naftaada waa inaad taqaanaa sifooyinka aad leedahay xumaan iyo wanaagba marka uu qof wax ka sheego dib ugu noqo waxaad tiraahdaa sifada ma ku sifaysanahay haddii ay jawaabtu tahay haa kuma dhibi doono hadalkaasi waayo waad ogtahay in uu run yahay haddii aanad sifada ku sifaysnayn maxaaba xanaaq keenayaba waayo waxa qofkaasi ka sheegay kumaba sifaysnid tallaabada afraad u ogolow dadku inay hadlaan ogow dadku Allah subhanahu wa ta'ala ayay aflagaadeeyeen waxay yiraahdeen caruur ayuu leeyahay nabi maxamed ay aflagaadeeyeen waxay yiraahdeen waa sixroole wuu waalan yahay iyo wixii la mid ah adigu yaa tahay marka doonaysid inaad dadka ka badbaado hadalkooda adigoo adoon yar oo daciif ah miyaad rabtaa inaad ka badbaado hadalka dadka ugu dambeyntii u daa dadku ha hadlaane fadlan haddii uu muuqaalkani ku caawiyay subscribe saar channelka like saar muuqaalkan asxaabtaadana la share garee mahadsanid